صاحبيال kusoo dhawaada ugu media dhawaan waxa warbixin soo saaray qaramada midoobay warbixintaasi waxa ay ku saabsaneyd Daesh hadaba maanta waxaan diiradda saari doonaa warbixintaasi iyo waxyaabo lagu la faguray waxaan si gaar ah uga hadli doonaa oo warbixinta looga hadlay hoggaanka Daesh sida ka muuqata warbixintan waxa isbedel lagu sameeyay hoggaanka guud ee Daesh Abdulqaadir Muumin waxa uu ahaa hore wuxuu ahaa hoggaanka walaayada Daesh ee Soomaaliya ayuu wuxuu ahaa hoggaan balse waxa la leeyahay Abdulqaadir waxa hadda laga dhigay hoggaanka guud ee Daesh soo kale warbixin dhawaan lagu baahiyay idaacadda Voice of America oo markaasi soo xiganaysa ila sirdoon oo Mareykan ah ayaa lagu taakiidiyay ama lagu adkeeyay in hoggaanka Daesh loo dalacsiyay ninka lagu magacaabo Abdulqaadir Muumin oo hore u ahaa hoggaanka laanta Soomaaliya inuu hadda yahay hoggaanka guud ee Daesh Abdulqaadir Muumin magaca uu hadda ku joogo Daesh dhexdeeda ama uu xilkan ku hayo ma ahan magaciisa saxda ah waxa lagu sheegay magaciisa Abu Hafsa al-Hashimiyya al-Qurayshi waxa magacaan lagu bixiyay ayaa leeyahay laba waxyaabood oo ay ka leeyihiin Daesh midda koowaad oo ah in hogaamiyaashii Daesh la soo bartilmaameeyay oo la dilay kii ugu dambeeyay waxa la dilay 2022 kii ka horeeyana 2019 sida darteed waxa leeyahay magacan waxa lagu bixiyay in markaasi aan si fudud lagu ogaan inuu Abdulqaadir Muumin ka Soomaaliya uu yahay hoggaanka guud ee Daesh sidoo kale waxa magacan Abu Hafsa lagu bixiyay Abdulqaadir Muumin ayaa waxa uu yahay ayaa leeyahay in Daesh halbeegeeda uu kamid ahaa in qof markaasi aan ka soo jeedin firkii Nabi Maxamed uusan qaban karin hoggaanka Daesh sida darteed waxa leeyahay Abdulqaadir Muumin waxa magacan Abu Hafsa lagu bixiyay waa sidaas oo waa in markaasi laga dhigo ama loo ekaysiyo qof ku nasab sheegta ama ku abtirsada firkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sidoo kale warbixintan waxa lagu sheegay in Abdulqaadir Muumin uu hadda ku sugan yahay gobolka Bari gaar ahaan buuraha Calmiskaad si gaar ah waxa uu sugan yahay ayaa leeyahay godad silsilad ah oo uu halkaasi uga dhuumanayo duqeymaha diyaaradaha ama duqeymaha dhanka cirka ah sanadka hore ayaa Abdulqaadir Muumin waxa uu ka badbaaday duqeyn dhanka cirka ah oo ciidamada Mareykanku ay halkaasi ka geysteen laakiin waxa ku dhintay ayaa leeyahay 3 xubnood oo ka tirsanaa xubnaha muhiimka ah ee Daesh ee ka dhawaa Abdulqaadir Muumin warbixinta waxyaabo badan ayaa looga hadlay waxa la leeyahay in Daesh ay hadda isku dayayaan in ay ila dhaqaale inay abuurtaan oo ay dhaqaale ku heli karaan intaas ay noo joogto maanta falanqayntii koobnayd oo aan uga hadlaynay Daesh sidoo kale waxaan halkan ku soo gudbin doonaa warbixino iyo falanqayn kale oo la xiriirta xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo caalamkaba waa media oo kale ku soo dhawow bartayda YouTube Facebook iyo TikTok intaba